بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت نقصه بيرتي سودا وادا عبد الله عبد الملك الشيخ موسى عردان وكسوان مقالة مقدشو عاوناي تاريخ دي سرقتي صدنكي بشي سيديداد لبدا كون إياه تضبية وانك وهبين 4 ساعد واحد تمام يسحل لك مقالة مقدشو كودي يلا كوب يلا تنتقل. سو دوادا أنا أقول قلعة طبعا معي موضوع عنوان كيسو يهي سوماليدا لو ديبو مع إثيوبيا. إن شاء الله حرجيني يا عدكو إنه واضح يهي برجيني إن شاء الله بإذن الله الكريم. عنوانك وكادر كيسين سوماليدا لو ديبو إثيوبيا. دوا سوماليدا لو ديبو إثيوبيا. هذا ما ها إثيوبيا كلو ديبو إثيوبيا. وقف صوماليا ومسلمة محن انت بدن هذا انت لقبته لو ديبو ما إثيوبيا. طبعا waxaa laga yaabaa qolo kastaaba inay mar aad ugu ay baraarugto oo arrinku aad u damqo, laakiin waxaan waxa weeye muddo dheer ayuu soo jiray. muddo dheer ba Soomaalida la dhiibayay, muddo dheer ba Soomaalida la silcinayay. Soomaalidu iyadoo ka soo carartay dhulkoodii, khaasatan dhulka la haysto aad u taqaaniin kilalka shanaad qaaridi kamid ah u yaqaani. intay ka soo cararaan dhulka la haysto oo dadka lagu dhibo, haddaan qofku adoon noqon oo aanu ilay adoon noqon oo aanu dawladda dhexe Itoobiya adoon noqon, waxa weeye waa la xidhaya, waa la dilaya, waa la dhibaateynaya. dadkaasi mararka qaarkood waxa ay soo maciinsadaan dhul Soomaaliyeed ayay yimaadaan. dhul Soomaaliyeed bay isugu yimaadaan, halkaasay isiraadeen nolol ka raadiya. dadkiinii baad u timaadeen, walaaladiinii baad u timaadeen, halkanaad ammaan ku haysataan. waxaa dhacda in la dhiibo. arrin qarsoonna maaha, waa arrin musanada soo jira. hadiyado طبق من هدية لو قولي بإثيوبيا وحوي والله غفر حياة إثيوبيا مركز قالت إثيوبيا يعني مو هاي سياسي الصومالي مركز دون إنه إثيوبيا كفر حياة وإنه قف صوماليا ودي بأكبر هدية وسياسي مو هاي الصومالي هي وقار كم إذا كل ود معها مركز دون إنه إثيوبيا كفر حياة وحيودي بان قف صوماليا مركز قال كود واحد عدد كلا ليبيا ما حتى ضد يعني كتشرة هلجن هو بيسن وضد مساكينه dad aan waxba galabsan, dad aan dagaal ba aqoon, dad aan xitaa halganba ku jirin, dad yani rayid ah, rag iyo dumar, dhalinyaro iyo odayaal aan waxba galabsan ayaa mararka qaarkood loo dhiibaa hadiyad ahaan loogu dhiibaa.
hadday halgamaan iyo haddii kaleba looma kala eego. xitaa haddii ay halgamaan oo ay mucaarad dowladooda ku yihiin, marka aad adigu u dhiibaysid soomaali kale Ethiopia u dhiibaysid, adiga kuwa ku dhibaataynaya ee Ethiopiaanka ee xaggaa jooga ama Soomaalida ma ku dhiibayaan. Ethiopia dadkeeda ma soo dhiibtaa? dad iyagu Ethiopian xabashiya xaggaa ma laga soo dhiibaa oo ma la keenaa oo madaxda Soomaalida ma loo dhiibaa? anu ma garanayo wax loo dhiibay. anu ma garanayo yani muxuu wax loo dhiibay. anu ma garanayo. yani runtii waxyaaba muxuu aad iyo aad looga xumaado weeyaan. waxyaaba muxuu aan ku tilmaami karno in qofka Soomaaliga la dhiibo wax aad u fool xun weeyaan. aad u fool xun. fool xumo wuu dhaafay. marka waxa isweydiin leh haddaynu ka hadallo oo ka aamusi mayno, runtii cidna ka haybadaysan mayno, cidna uga baqi mayno. ninkii ugu dambeeyey dhacdadii ugu dambeysay ay dadku ay ka hadlayaan waxa weeye nin la yiraahdo Cabdikariim Sheekh Muuse oo lagu naanayso qalbi dhagax ayaa waxaana soo gaadhaya warar sheegaya in ninka Soomaaliga ah in Ethiopia gacanta loo galiyay. wararkaas la daabacaya, warbaahintu ay daabacaysa, ay qoraysa. marka ninka Soomaaliga ee lagu sheegayo warbaahintu waxay qoraysa inuu ka tirsan yahay jabhadan hubaysan ee mucaaradka ku ah Ethiopia iyo kuwa Soomaalida ah ee dabadhilifka ah ee ka taliya dhulka la haysto. intaaba mucaarad bay ku yihiin. marka ninkaas ayaa loo dhiibay, ayay warbaahintu qoraysaa, Ethiopia loo dhiibay. waxa su'aal baa maxay meesha maxay isweydiin mudan. ninka yaa loo dhiibay, yaa dhiibay, maxaa loo dhiibay? haddii ninkaa la dhiibay, yaa loo dhiibay? ninkaa Soomaaliga yaa loo dhiibay, yaa dhiibay, maxaa loo dhiibay? haddii aynu ka nimaadno, aynu xabad xabad u qaadno, waxa wararku ay noo sheegayaan in Ethiopia loo dhiibay qalbi dhagax. yaa loo dhiibay? Ethiopia loo dhiibay ay wararku sheegayaan. yaa dhiibay, yaa dhiibay waa ta aanu doonayno jawaabteeda. cidda dhiibtay jawaabteeda waa ta aanu rabno. warar baa la daabacayaa, la qorayaa. wararkaas waa in laga jawaabaa. jawaab waa inaan helaa. laga aamusi maayo. caawa ku ekaan mayno inaan muxuu toos soo gallo. waxa weeye Soomaali way ka hadlaysaa. yaa dhiibay? maxaa loo dhiibay? sharcigee baa loo maray marka la dhiibayo qof Soomaaliya Ethiopian loo dhiibay? waa in laga jawaabaa. waa inay ka jawaabtaa cidda ay khusaysaa. cidda ay khusaysaa mas-uuliyadda waa inay ka jawaabtaa oo ay warbaahinta kala hadashaa shacabka markay la hadlayso waa inay warbaahinta soo maraysaa, shacabkuna u diyaarin inay dhegaystaan. waa in laga jaahil saaraa. haddii ay cidda ay khusaysaa ka aamusto, idan iyadaa dhiibtay. haddii ay aamusto oo aamuskeedu sii bato, waxa weeye waxa aan u arkaynaa in ay yani cidda ay khusaysaa iyadu dhiibtay qalbi dhagax Ethiopia u dhiibtay. marka waxa weeye jawaab cad baa la sugayaa. shacabku way sugayaan. shacabku aamusi maayaan. ma ogolaanayaan in marba mid la cuno. haddii ay ogolaadaanna iyagaa loo imanaya. qof kasta gurigiisa loogu soo gelaya. mid shacaba, mid xukuumadda ka shaqeeya, mid aan ka shaqeynin, mid shiikha, mid aan shiikh ahayn, mid heesa, mid aan heesin, mid loo heeso, intaba xabad xabad baa loogu dhiibaya maalinta la doono. saddexdii dibi marba mid baa la cunaya. haddii ay aamusaan shacabku, waxa weeye maalintii qalbi dhagax la cunay
ayaa anigana la cunay baa ka dhacaysa marka isagana la qabanayo. runtii waxa weeye intaas oo dhan waxa weeye maalmahan oo dhan waa la daabacayay waxa weeye cid ay khusaysana anigu ilaa iyo imika jawaab cad kama hayo, jawaabna muxuu ahay waa ka sugay. qof kasta oo muxuu ahay damiir leh aad ayuu uga xun yahay in qof Soomaaliya oo aynu ognahay meesha la geynayo in la dhiibo oo loo dhiibay Ethiopia. Tigtiga Ethiopia dhulka la haysto ee Soomaaliyeed gaar ahaan Tigtiga aan dul istaagay waxa ku yaala jeel caana oo sumcadiisu xun tahay oo dadka lagu dilo, lagu cadaabo, lagu dhibaateeyo oo loo yaqaano jeel ogaadeen. aswa sajin aan maqlo jeelal badan baan caalamka ka maqlay aad la isugu dhibaateeyo kii ugu liitay aan maqlo waxa weeye jeel ogaadeen. mararka qaarkood waxaa tegaysaa dad Soomaaliyeed ayaa tegaya halkaa oo aan ka hadlayn. dad Soomaaliyeed dhaanta laga soo ciyaarayaa aaga jeelkaas oo la soo noqonaya. jeelkaas waynu ognahay dadka in lagu dilo, jeelka waynu ognahay dadka in lagu dhibaateeyo, qofka galaa waxa weeye waynu ognahay sida loogu dhibaateeyo. weydiiya dadkii ka soo baxay waad helaysaan, way joogaan dacallada caalamka, way joogaan halkanayna la joogaan. weydiiya dhibta halka ka jirta waxa weeye macruuf jeelkaas. marka ninka Ethiopia loo dhiibayay wallahi waxa uga wanaagsanayd iyagoo dilaba saasaan u arkaa, iyagoo Soomaaligaas يعني خارجية أو Soomaaliga خارجية intaan Ethiopian ka u dhiibay sababtoo ah waxa ka dambeeyay in ognahay waxa weeye wana la mashqaynaya wana la ku eegaya. waxaan idin sheegayaa cadawgeenu ma aha Ethiopian kaliya ma aha, cadawgeenu waxa weeye dad Soomaaliya oo inala jooga oo inagu dhex jira oo shaqooyinkii haya oo laga filayay inay dadkooda iyo dalkooda daacad u noqdaan laakiin aan daacad ahayn. way weliba meel sare baa ka eegin waxa weeye waa shaqaale hoosaad meelo hoose yar shaqooyin yar bay haystaan hoose, laakiin amarka kama qaataan maxay dalkooda iyo madaxdooda. meel kale laga amraya soo dhiib. waxa laga yaabaa inuu adiga ku yahay meel ku hayo, inuu agaasimo wasaaradeed yahay, inuu yahay wasiir ku xigeen yahay, inuu saldhig boolis haysto, inuu taliye ku xigeen yahay, inuu laan haysto meel, inuu gudoomiye gobol yahay ku xigeenkiisa oo kale. dad noocaasa oo aan ku shaqayn baa jira oo maanta oo dhan muxuu ahay wadani matalaya, wadani baan ahay laakiin hoosta muxuu ahay kala shaqeeya Ethiopia iyo cadawga iyo mukhaabaraadka, danaha mukhaabaraadka sirdoonada caalamka oo dhan la shaqeeya ayaa jira. marka meel kale ha ka raadin cadawga waxa weeye wuu inagu dhex jiraa, way dhex marayaan, meel kasta way dhex marayaan, dhulka Soomaaliyeed way dhex marayaan. waxaana u taqaanaa wadani Soomaali buu ogyahay isaga waxa laga yaabaa inaad iska ilaalin oo meel kale waxa laga yaabaa inaad isaga iska ilaalin oo meel kale iska ilaalin, laakiin hum العدو iyaga cadawga faxdarhum iska jir. aad iyo aad baan uga xunnahay haddii ay sheekadani dhabowdo, waxayna u badan tahay inay dhab tahay. hadday sheekadani dhabowdo waxa weeye fal xun, taariikh madow oo isqortay in qof Soomaaliya muxuu la dhibo. maaha markii ugu horeysay ee dad Soomaaliyeed loo dhiibay Ethiopia, waxa weeye marar badan ayaa loo dhiibay. waxa isweydiin leh sharcigeebaa loo maray. waxa laga yaabaa inay soo baxaan oo ay dhacdaba in la dhiibay oo aynu akhriyaan sharci oo ay yidhaahdaan sharciga noocaasa waxa noocaasaa jira. waxa weeye arrinka waa inaan ka digtoonaana ha dhowto. jawaabo muqnic ayaana la ku qancin, jawaabo aan muqnic ahaan ayaana la ku qancin oo loo muxuu ahay dadka muxuu cuquushooda la xadayo oo lagu dajinayo xaaladda iyadu mana deganaanayso ilaa jawaabaanu helo. xataa haddii ay dhacdo in ninkaa la dhiibay waxa weeye waxaanu dalbanaynaa in la soo celiyo.
أنا واحد في ليا الاسمه جبا تضهوس هوسي أيام بشقيسان اسمه جبا ما حد يسر ما جبا أنا ملاني أنا ما حد يسر ما جبا نسلاي هاي بدي وهو يوحنا ملاني إن هوسينا شقيسان يسو صوبته وحن مغلي بقى ماشي لقى سوق قبطي سيدا أي ورق وشيء يعني نينك قلبي دقة وحوي وح لقى سوق قبطي قلب مدوق بلقى سوق قبطي إذا ماذا قلب مدوق بقى عنتك وهي مرقورة أيا لسه هذه نبت سجد أيا لسه هذه بلا شيء وسيدا ورق وشيء كدبنا ديارات بلقى ساري هلك وحهر كعي أمل لسعودي مدح سرسرة لسعودي مملو متليسي فحلاه راعي بيردبا ما ديارات الجسي وليبا بيردا بسلك أي كلهم إثيوبيان أيا لدتشي سيدا ورك شيء اتباعي ورك طبعا تكتشوا بكا الله ورك واحد شيء سلك بالو دتشي وقال بيردا أحمد سلك لو دتشي مقدش أنا لا قاضي مركي ورا وحنا لو سي قاضي بيردا با وحلا سي قاضي سلك إثيوبيان كلهم أيا لا سي قاضي وحنا لقي دولك الله هيستو هي إثيوبيا إن كان كاسكو سوية بالشيء جوابها وحوي أرمها الله ضابع يعني ما هي لقريه تعدى خصيصة وينك جوابتها ومهم جدا وينك جوابتها مهم جدا وينك جوابتها وين النقن عيسى وين النقن عيسى ما مصينو تشاب كمتشرنا تدك تشاب كمتشران ضدكم ما هي حوي لو قدي كريم مايو نقبيايا والله يلا هذا محمود الزبيري هو يمني أهل جماعة رجي أهل جمي يمن دول مديدها أيا قبي عانا أيولي هاي يقولوا لك تدق سيادة أو قبي ما كمعروف ما هي شعر كعربية معاصر كا وحو كبلابية سجل مكانك في التاريخ يا قلم سجل مكانك في التاريخ يا قلم فها هنا تبعث الأجيال والأمم هنا البراكين هبت من مضاجعها تضغي وتكتسح الطاغي وتلتهم شعب تفلت من أغلال قاهره حرا فأجفل عنه الظلم والظلم نبع عن السجن ثم ارتد يهدمه كي لا تكبل فيه بعده قدم إن القيود التي كانت على قدمي صارت سهاما من السجان تنتقم إن الأنين الذي كنا نردده سرا غدا صيحة تصغي لها الأمم والحق يبدأ في آهات مكتئب وينتهي بزئير ملؤه النقب جودوا بأنفسكم للحق واتحدوا في حزبه وثقوا بالله واعتصموا لم يبق للظالمين اليوم من وزر إلا أنوف ذليلات ستنحطم لم يبق للظالمين اليوم من وزر إلا أنوف ذليلات ستنحطم والشعب لو كان حيا ما استخف به فرد ولا عاث فيه الظالم النيم إن الغزاة وإن كانوا جبابرة لهم قلوب من الأطفال تنهزم ها هم الجبابرة مهما كانوا جبابرة الغزاة لهم قلوب من الأطفال تنهزم والشعب شاهد كماش وحوي قبيقة شاهد كيس انت وبدنية نحر حكمت بدن بو حنبارسية قبيقاس لكن هذه سوتشي ذاتي وحكو ليه والشعب لو كان حيا ما استخف به فرد ولا عاث فيه ظالم النهم شعبك هدو يهي من نور والشعب لو كان حيا ما استخف به مو يريستين شعبك هدو يهي من نور مو يريستين قفي فرد قف قرى مو يريستين ولا عاث فيه الظالم النهم كمانو دردريين كمانو كبرين ظالمك بهلك يا عناقة هي كمو دردريين وهدو شعبك نول يهي ظالمك ساكا مو يهي شعبك هدو نول يهي لكن شعبك بختيا ما نبى بتبالغ هذا هي رالبات كتاي حلقة يا بامركت كانت سكولات تهين الدمقتي بس كلنا اعتراض حوام حاجة قلي مركاسو كسو قبينا يا وحكو يا إن الغزاة وإن كانوا جبابرة هدايبا وين كو صويررا اي دولميغا كو صويررا هدايبا يهين كو وين او مقدان كو وين او كبر بدن لكن waxay leeyihiin lahum qulubun min al-atfal tanhazimu waxay leeyihiin qalbi waa qalbi caruur jabaya oo muxuu ahaay qalbiga ka jabaya
أي لين مركا شعبو إذن كان نولين شعبو إذن كان نولين لبعد هو أي صومالد ولا هاي وحوي وقبيلك أي إثيوبيا قبيلك أي إذن كرجع هذه إثيوبيا أي إذن كقبطي يدا إذن كوك على قاي بنيسا يا أخي وحوي مؤامرات بسعوتها مؤامرات بالعرب كسعوتها ضد كان شعب كان مؤامرات بالعرب كسعوتها الله يكون في عونه وحوي وحن كسوق بجبيني وحن كسوق بجبيني مرة إيرانية موضوعي وحوي وحن تاجنا هي قلب دقح يا ديبي يا لو ديبي محل لو ديبي تاسان تاجنا هي ويديمها جوابان وقبهنا سي دخسابا جوابنا عدة أي خصيصة وينك جوابتها عدنا كجاي بديسن منه عدنا هو جابيل منه عدنا هو بقي منه وحويه قلب دقح يا ديبي محل لو ديبي يا لو ديبي والسيدة ديبيتان بان إلا إما كوربهنتو أي دابعيسا ورقيسيدو أي دابعيان براها بالشدة لقاقا هذا لهيا سوردي سيبالا صوردقيا marka waxa weeye jawaabaan u baahanahay mana ogolin insha Allah tani waa qaybtii ugu horeysay aan kaga hadlaynay Soomaalida maxay loo dhiibo maxay Ethiopia runtii manaha qalbi dhagaxkii ugu horeeyay wuxuu noqonayaa boqolaal bal kumanaan ayaa ka horeeyay oo si fudud yani hadiyad loo dhiibay intaas ayaan ku gabagabeynaya waxaana idin hadlayay عبد الملك الشيخ منصور الدون أو كسوغان مقالة مقدشو تاريخ ذو وهو صدق كي بشي سديدات لبضا كون إيو تطبية طبنكا وحانو تيدا كون إيو تطبية بقل أوقف أو يداوانا يآد بدل ما سنتي إن شاء الله وحوي وينو يبري إيو هبين ضب إيو وحي كسو عصبون هذا أرنكا وحلقيها بأينا وحي الله لكن إن شاء الله كلن كلا أينو لنا هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته